dadka kanool xarada iyo fotu oo kumida xarooyinka qaxootiga Dhadhaab yaa mayba ku owaadahayaan intii yoon ku guuri korna xaradaas xilliga hadalka gudu jira maadaama iyo sheegan in waqti kuleel ka jira saas dartiyaana iyo ku obso qabaan cudurro halista intii iyo saameeyaan hadalku ya qoy ku reed markii ay sheegtay hay'adda UNHCR intii gebi ahaanba xarada ifolama lihiri doona meeli likdeere bila afaraad isla markaasna ay sheegtay hay'adda intii iyo yaraatay deegtay iyo ku helaasay caalamka saas dartiyaana lihirahaya xaradun ya waliba kanool qaxooti tiradiyo korandhaafas 20,000 mayna ku codsadayaan hay'ado samafalka intii yoon ku roorna xaradiyo waxaan ka cabsanaynaa haddii aan xaro cusub haddii aan ku beerno inay hadda muxuu ahaa deris hor leh bal iska dhaaf in wax cusbada habeenkii ka dhamaato wax laga qaato inaan wayno oo hadda deris cusub iyo muxuu ahaa magaalo cusub ayna noqono marka saas daraadeed waxaa nala roon in hay'adaha ilna xaris nagu fiiriyaano baraka hor hadda ayna la gelinin xilli kulaalaha waaye haddii hadda la guuro waxaan kale ka sii cabsanaynaa inuu shuban biyoodki iyo heeq dheerti iyo jadaacadii iyo shubankii iyo cudurradii inay nagu soo noqdaan ka baqaynaa saas daraadeed marka waxaan ka codsanaynaa hay'adaha inay noo daayaan xarada sideeda u iska ahaato ilaa iyo xare ahaan u furnaan karto in nala dulqaata codsanaynaa ma barakaba guuri karnaba saamay aad weyn bay u yeelanaysaa anigu waxaan ahay ninkaygu maqan yahay waxa weeye ilmo yar qof rarhay oo haween waa dareemi kartaa waxaan hataa ku fikiray 5 ciyaal baad qaaday iyo aan ba ku qaad meel baad ku geysay meesha waa meel banaan ku sir ma geenay ma inta alaabta ku rarhay ilmihiya ku haynaysa inuu fikiray waxaan go'aansaday ilaa UN iyadoo buris waqti iyo maanta jagada qootay qaado inaan dhaqaaqma go'aansaday marka saas oo baankaygu marayaan hadda islaada saaq axmed ku nool ifatu khaasatan E4 marka hadda geediga hadda la sheegay waxaan u aragnaa dhibaato inay nagu tahay anagoon ka guuri karin meesha aan deganahay dhismaha iyo qarashaadka lagu guuray awood uma heli karno marka waxaan codsanaynaa haddii hay'adihii samafalka oo anaga meesha na keentay haddii laga socdo waxaan rabnaa in naloo daayo meeshaan xare idil oo 22 ay ku nooshahay oo xare kale la dul dejiyay adiga ma wad garanaysaa caqabada ay leedahay ban kala hadalnay diidma annaga horta qaxooti baana hay'adaha ayaa gacanta nagu hayo awood horta aan ku diidno oo aan hadda UNHCR ku hoostaagno horta annaga ma lihin qaxooti baana laakiin caawashadaanada waa u sheegnay markay noo yeereen waxa inaan dhibaato ay tahay waan u sheegnay ayagana way ogyihiin balse waxay nagu dhaheen dhaqaale yaraa jirto annaga dhaqaale ma hayno in marka anagoo reer aan dhaqaale u haynina meesho fadhin karno marka xerooyinku waa isku duduwaynaa si aan wixii aan markaa hayna aan u gaarsiino saa darteed baan yaan u yeelaynaa bay nagu dhaheen xerada dadkeeda dad la qaadi kara ma ahna dad tiradeeda ma yaro waxaan ka codsanaynaa xeradanada in naloo daayo wax asaasiga annaga awalba nala siinayay waxbarashadanadii iyo caafimaadka annagina kor loo qaado oo nagula sii dhaqaaleeyo intaasaan codsanayaa si kastoo taaba xaradun yaa muuqato markaas lihiri doona maadaama dad badan oo ku nool xaradun reetanka laaba ma hayaan Soomaali walibana sanadkii hadda la dhaaf lihiri xarada Kaambocoos oo kuma tahay xarooyinka qaxootiga Dhadhaab Idriis Maxamed Xasan Idriis Aafiya TV-ga caalamiga Koonfur Galbeed xariyaha qaxootiga Dhadhaab